maxaa ka run ah in la dilay hogaamiyaha islaamiga ee dalka Iran? Warar goordhoweed ka soo baxay sirdoonka Israa'iil, ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Mareykanka iyo dhammaan warbaahinta iyo joornaalada waaweyn ee reer galbeedka ayaa shaaciyay in weerarkii saaka lagu qaaday dalka Iran in lagu dilay hogaamiyihii dalkaas ee Ayatollah. Hase ahaatee dhanka Iran weli wax war ah ay ka soo saareen arrinkaas ma jiro. wixii warar ah ee ku soo kordho waxaad inagala socon doontaan Radio Halgan. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد